بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa ee telefishinka HBN qodobada aan idinkugu haynana waxa ka mid ah iyadoo duqeymo culus maanta ay isweydaarsadeen Xuutiyiinta iyo Israa'iil ayaa mar kale waxa hawada hanjabaad isku mareeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo afayeenka ciidamada Xuutiyiinta General Yahya Sariic waxaana dhinacyadaasi iskugu hanjabeen in midowga kale uu ka takhalusi doono wararkii ugu dambeeyay ee xiisadan ayaan idin soo gudbinaynaa xogaga iska caabinta ee Mareykanka Gaza ayaa iyaguna ka warbixiyay howlgalo ka dhan ah militariga Israa'iil oo qasaare ay u geysteen Israa'iil docda kale waxay sii wadaa duqeynta Hamas oo si adag u cambaaraysay macluumaad lagu soo bandhigay baaritaan uu sameeyay wargeyska Haaretz ee ka soo baxay Israa'iil taasi oo ku aadan ficil bini'aadanimada ka baxsan oo Israa'iil askarteedu ay ka wadaan Mareykanka Gaza madaxweynaha Iiraan waxa uu si adag uga hadlay xaaladda waddanka Syria isagoo ku baaqaya in laga qayb geliyo hanaanka dawlad dhiska dhammaanba qowmiyadaha waddankaasi Mareykankuna waxa uu shuruud ku xiray aqoonsiga dawladda cusub ee Suuriya maxay tahay shuruudan maxayse ka macno tahay waan idin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa Kuuriyada Waqooyi oo si adag uga hadashay ugana falcelisay hadal ka soo yeeray Mareykanka oo la xiriira hubkeeda nuclearka dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo falaqayntii iyo wixii waraha ee soo kordhaynteena hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa soo gudbinta barnaamijkan waxa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com حاج كومي برونتو سوغو هشا سوغو البامادورو كواوهي سوغو الرغو بلانيسا هدنا سوغو التونا كل واديار دوقاق عيار إقدا عيارت اسباجيت هاوس هويغا باستا ايه دالكينا اها وان دلبي سوغدي هوران laga keenay عادي ما سوغدا waa sababta loo wada jeclaaday برونتو سوغو laguma tara xawaajiyo maraq digaag yaaba u baahan wax tayo leh sida olive oil lagu sameeyaa برونتو سوغو boqolkiiba boqol waa ingarasiyo شب اسكا ده waa hilib shiidan amba vegetable macaan kan ka fahmay haddaad mashquulsan tahay degdegsan tahay martiqaad qabto ama dhadhan tabayso tartiibka dalba suugada qarniga spaghetti house quality waa looga haray suugada haddaad dalbato degdeg ayaa goobtaada lagugu keenayaa qancinta macaamiisha waa astaanta spaghetti house maxamed cadeeh oo wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn xiisada u dhaxaysa Israa'iil iyo Xuutiyiinta Yemen ayaa sii kordhaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ballan qaaday in Xuutiyiinta ay la kulmi doonaan weeraro hor leh wuxuu sheegay cid kasta oo isku dayda inay far saarto Israa'iil in ay qiimo xoog leh ugu fariisan doonto saacado kadib markii Israa'iil diyaaradaheeda ay duqeeyeen laba dekedood oo ku yaala waddanka Yemen waxaa sidoo kale la sheegay in la duqeeyay goobaha saliidda lagu kaydiyo ay leeyihiin waddanka Yemen xilligaas oo diyaaradaha Israa'iil ay dul duuleen waddanka Yemen Israa'iil ciidankeeda ayaa sheegay inay ka hortageen waxa ay ku sheegeen waxa ay kaga shakiyeen in laga soo tuuray waddanka Yemen oo ku soo beegnaa bay leeyihiin Israa'iil waxaana la sheegay in Xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen inay duqeeyeen magaalada Tel Aviv oo laba gantaal oo nooca ballistikada loo yaqaano Falastiin labo in ay la beegsadeen Netanyahu ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay markii Hamas iyo Hezbollah iyo xukuumadda Assad ee waddanka Suuriya laga takhalusay Xuutiyiinta kaliya ayaa noqday gacanta kaliya ku soo hartay dhidibada sharta ah ee waddanka Iiraan Xuutiyiinta ayaa waxa ay baran doonaan buu yiri sida dib ay u leedahay in Israa'iil la waxyeelayo qiimo xoog lana ugu fariisan doonto Xuutiyiinta militarigooda afayeenkooda Yahya Sariic ayaa asna dhankiisa sheegay hadal telefishinka Xuutiyiinta laga sii daayay ee Ansarullah in gantaalada lagu weeraray Israa'iil ay ahaayeen kuwa waxtar leh labadoodana ay ahaayeen gantaalo guuxa ka dheereeya lala beegsaday bartilmaameedyo ku yaala magaalada
Tel Aviv wuxuuna intaas ku daray waxaa intaa dheer baa la yiri in looga jawaabayay waxyeelada ay Israa'iil u geysatay waddanka Yemen. Sariic ayaa carabka waxa uu ku adkeeyey gardarrada Israa'iil ma noqon doonto mid niyad jabisa Yemen iyo shacabka Yemen in ay waajibaadkooda diineed iyo mid akhlaaqiyeed ay uga jawaabaan xasuuqa marinka Gaza ka dhana inay qaadaan weeraro ay ku taageerayaan Falastiiniyiinta ku qaadaan Israa'iil sidoo kale inay ka jawaabaan weerarada gurracana Israa'iil qaadayso iyadoo sidoo kale ku taageeraysa in ay weerarto ilaha munaasabka ah ee gardarrada geysanaya inay la beegsato hub munaasab ah waa sida hadalka loo dhigay. Kitaabul Qasaam ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay maareeyeen in ay gacan iyo tuurey ama baynaad ku dilaan askari Israa'iili ah 3 kalena ay weeraraan ayaga oo joogay ama ku sugnaa xerada qaxootiga Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza. Waxaa la sheegay in qoryihii ka qaateen askartaasi. Kitaabul Qasaam ayaa xaqiijisay bayaan ay Telegram ku qortay in dagaalyahanadeeda ay awood u yeesheen inay dhammaystiraan askari sarkaal Israa'iili ah askartiina ay ka qaataan qoryahooda. Howlgalkaasina wuxuu ahaa midkii ugu horreeyay oo noociisa ah oo dagaalka marinka Gaza wajiyadiisa isbedelayaan. Hadda aad moodo inuu galay marxalad xasaasi ah sida ay sheegayaan dadka arrimaha dagaalka la socda. Israa'iil militarigeeda goobta la yiraahdo Majin ayaa waxaa bartilmaameedsaday nin isqarxiyey sida la sheegay. Saraakiil Qudus ayaa iyagana dhankooda sheegay in ay gacanta ku dhigeen diyaarad noocan duuliyaha lahayn Israa'iil xog basaasnimo ku urursanaysay deegaano ka mid ah Khan Yunis. Kitaabul Qasaam ayaa iyagana sheegay inay toogasho niishaab la ku dileen askari Israa'iili oo marayay deegaanka la yiraahdo Al-Tawam ee waqooyiga marinka Gaza. Madaxweynaha waddanka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa ku baaqay in Israa'iil ay si degdeg ah uga baxdo dhulka Suuriya wuxuuna sheegay inay tahay wax laga xumaado beesha caalamka ay ka aamusan tahay arrintaasi wuxuuna ku tilmaamay in gardarrada Israa'iil ee socota in laga aamuso inay tahay meel ka dhac. Waxaa sidoo kale muuqata in uu sheegay in gobolka dowladaha ku sugan ay u baahan yihiin inay iskaashadaan wuxuuna sheegay in shacabka Suuriya ay ka shaqeeyaan sidii ay u midoobi lahaayeen isla markaasna ay waddankooda xasiloonidiisa iyo ammaankiisa uga shaqeyn lahaayeen wuxuuna ka dalbaday inay sameeyaan dowlad loo dhan yahay oo ogolaanaysa inay ka qayb qaataan dhammaan furuucda uu ka kooban yahay shacabka waddanka Suuriya iyagoo ilaashanaya xushmeynayana darisnimada wadamada kale ee ku heerarsan. Pezeshkian ayaa sidoo kale dalbaday in maamulka cusub ee Suuriya ay difaacaan hantida maguurtada ah ee waddanka Iran iyo xarumaheeda diblomaasiyadeed ee ku yaala waddanka Suuriya iyadoo carabka lagu adkeynay in mas'uuliyadaasi ay saaran tahay xukuumadda hadda gacanta ku haysa magaalada Dimashq. Hadalkan ayaa imaanaya iyadoo xiisaha ka jira gobolka uu sii kordhayo halka Iran ay tahay waddanka kaliya ee taageeri jiray xukuumadda Suuriya. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay qodobo muhiim ah oo beesha caalamku ay ku taageeri karaan maamulka cusub ee waddanka Suuriya wuxuuna carabka ku adkeeyay inay muhiim tahay in la dhiso dowlad xoog leh oo cid walba ku jirto oo ka hortagta waxa uu ku tilmaamay argagixisada. Isagoo ka hadlaya arrintaasi ayaa Blinken waxa uu hoosta ka xariiqay in hoggaanka waddanka Suuriya ay ka muuqato waajibna ay tahay in uu noqdo mid ay ka maran tahay khilaaf iyo firqooyin isla markaana ay ka go'an tahay inay la dagaalamaan waxa uu ku sheegay xagjirnimada. Isagoo ka hadlayay mucaaradka waddanka Suuriya ee xukunka la wareegay ayaa waxa uu gaar ahaan ka hadlay Abu Maxamed Al-Julani oo ah hogaamiyaha waddanka Suuriya. Waxa uu sheegay Blinken in hadallada ka soo baxaya ay yihiin kuwa muhiim ah laakiin oo wanaagsan laakiin waxa loo baahan yahay falalkiisa inay noqdaan kuwa la taaban karo. Al-Julani ayaa sheegay arrimo wanaagsan sidoo hadalka u dhigay Blinken laakiin su'aasha dhabta ayaa waxa ay tahay in
waxa uu dhulka ka sameeyo ay la socdaan falalkiisa. hadalladan ayaa waxay hoosta ka xariiqayaan dowladda Mareykanka mowqifka ay ka taagan tahay mustaqbalka hoggaanka cusub ee waddanka Suuriya inay waajib tahay inay muujiyaan tillaabooyin horumar leh oo la taaban karo in ay qaadaan si caalamka u taageero. wararka caalamkana waxaa ka mid ah Kuuriyada Waqooyi ayaa cambaaraysay waxa ay ku tilmaantay faduusha غير مسؤولينimada ay dowladda Mareykanka iyo xulafadeeda ay ku dhaqaaqeen kadib markii ay cambaareen waddanka Kuuriyada Waqooyi taageerada uu fidiyay waddanka Ruushka dagaalka uu kala dhaxeeyo waddanka Ukraine. isla markaana waxa ay cambaareen ciidamada Kuuriyada Waqooyi isla markaana waxa ay wax ka sheegeen buu yiri ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay geysay waddanka Ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi afhayeenkeeda ayaa sheegay bayaankaasi ay soo saareen madaxda Kuuriyada Waqooyi sida wakaaladda wararka ee rasmiga ah ay sheegtay in 10 dal ee Yurubiyaanka ah iyo Mareykanka warka ay soo saareen uu yahay mid marin habaabina ayna ka hadlayaan xiriirka caadiga ah ee u dhaxeeya Ruushka iyo waddanka Kuuriyada Waqooyi. dowladda Mareykanka iyo dhowr waddan oo xulafo ah ayaa soo saaray bayaan ay uga digayaan Kuuriyada Waqooyi in ay si toos ah u taageerayso Ruushka dagaalka ka dhanka ah waddanka Ukraine, taas oo ay u dhigan tahay in dagaalka si khatar leh ay u sii ballaarinayso Kuuriyada Waqooyi. waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashu ay mahadsan yihiin mar kale ayaan soo dhaweynaynaa falaqaynta barnaamijka oo aynu idinku hayno arrimihii ugu dambeeyay ee caalamka oo aynu falaqayn doonno iyo wararka degdega wixii soo kordha ayaan u gudbaynaa. ha yeeshee qadar xayeysiina. ma doonaysaa inaad guri ama hanti maguurto ah si fudud ugu yeelato magaalada Nairobi oo lacagtaadu kuu shaqayso? haddaba kaalay guri ama laba ka iibso Tasa Tower oo ah dhismo 15 dabaq ah. xafiiska shirkadda Tasa Properties waxa uu ku yaalaa dabaqa labaad ee dhismaha Sunny Plaza, Wangabala Road, Nairobi. wixii faahfaahin oo dheeraad ah kala xiriir emailka, telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda. xarunta caafimaadka ee Private Walk-in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay soo kordhisay adeegyo cusub oo ay ka mid yihiin adeegga fiisiyoterabiga oo ka caawinaya dib uga soo kabashada dhaawacyada, cayaaraha, xanuunada lugaha iyo cagaha, dhabar xanuunka, muruqyada isku kaataaga iyo hagaajinta dhaqdhaqaaqa jirka. adeegga ultrasound-ka oo lagugu samaynayo xarunta ama lagugu imanayo gurigaaga. baakeejyada Wellman iyo Wellwoman oo ah baaritaano caafimaad oo dhammaystiran. xarunta Private Walk-in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London, xaafadda caanka ee Shepherdbush. wixii faahfaahin oo dheeriya kala xiriir emailka, telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda. soo dhawaada mar kale daawadayaal. weli waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. hagaag maxamed aan ku bilowno howlgalladan xuutiyiinta ay wadaan maalmihii ugu dambeeyey diyaarado drone bay ku duqeynayeen Israa'iil. maanta 2 mar bay gantaal ku garaaceen. gantaalkii koowaad Israa'iil waxay sheegtay in laga hortagay, laakiin warbaahinta Israa'iil sida Yadacota Harnood iyo wargeyska Walla inta waxay soo bandhigeen khasaare dhacay, baabuur gubatay, guryo burburay, iskuul xitaa maamulihii iskoolka uu leeyahay. iskoolkan gabi ahaanba waa burburay, dhismihiisii waa in la burburiyaa, dib loo dhisaa. kala carar baa dhacay, seeriga dhacayay. goor dambana gantaal kale waxaa la sheegay firirkiisa xitaa inuu kusoo dhacay aqalka baarlamaanka Israa'iil, kaniisadka loo yaqaan. waxaasi oo idil waxay ku soo aadeen iyadoo Israa'iil sidoo kale duqeymo culus ay ka geysatay Xudayda iyo Sanaa oo waliba ay ku burburisay qalabkii korontada meelihii laga dhalinayay iyo warshado iyo xarumo iyo wasaaradda gaashaandhig. xiisadan ma la oran karaa haddaba gun iyo caar bixisay? su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican. marka koowaad xuutiyiinta cid qasbi karta ma jirto. haddii dowladda Mareykanka iyo Britain ay wax ka qaban waayeen uma muuqato in Israa'iil wax ka qabanayso. waa midda kale Israa'iil laga sugumaayo inay run ka sheegto weerarada ay xuutiyiintu ku soo qaadaan oo ay kahashanayaan gantaalada buuxooda ka dheeraya. cid ilaa ay hadda sheegatay ma jirto caalamka oo dhan inay ka hortegi karaan gantaaladan buuxooda ka dheeraya. Israa'iil hadday sheegato waa ka hortagna hadday yidhahdaan hadalkeeda run kuma salaysna. intaa waxaa dheer xuutiyiinta waxaa ka go-an ballankii ay qaadeen inay ku taagan yihiin wax kasta ay qiimaha noqoto, shacab iyo maamulba. waxaa kaloo la isku raacay xuutiyiinta gaar ahaan ansaarullah inay ka awood badan yihiin dowladaha. in Israa'iil ay qoorta u gasho, ay qoorta u galaan
ururo aan dowli ahayn dowladihii waaweynaana ay taageeraan waxay ku tusaysaa sida awoodihii la sheegan jiray ay usii gurayaan caalamka intiisa kale isha ayuu ka fiirsanayaa duqaynta ka dhacday talaabiib ee aad xustay waxyeelada ay geysatay waxa weeye lama qarin karo warbaahinta waddanka Israa'iil looma ogola inay xaqiiqada wax ka sheegaan xuduudka iyagoon soo gaarin ayaan soo ridnay iyo ma soo ridi karaan gantaaladan madaxweynaha waddanka Ruushka Putin ayaa sheegay gantaalka ridada dhexa kan gantaalkan waa gantaalka ridada dheer weey gantaalka ridada dhexa ayaa la soo ridi waayay midka ridada sare ah wuxuu ka baxayaa hawada sare ayuu ka baxayaa waxa uu soo noqonayaa isagoo si xawli ku socda wax ka hortay karan lama arko saa marka la yiraahdo Israa'iil bootada ay u bootaynayso iyo handadaada ay u jeedinayso waddanka Yemen gaar ahaan ururka Xuutiyiinta wax weyn ma bedelayo dowladihii ka waaweynaa ee barataariyay ayaa meedaanka taagan oo wax ka qaban la inta waxa dheer Xuutiyiinta maalin kasto khamiisa waxa soo baxa madaxa Xuutiyiinta oo khudbad jeediya wuxuuna ka codsadaa taageerayaashiisa inay maalinta Jimcaha malaayiin u soo baxaan malaayiintaasna bari baa loo soo baxaya khudbadiisa saacada aan kula hadlayo telefishinka ayay suran tahay waxyaabaha uu sheegay waxa kamid ah in uu xusay waddanka Suuriya duqeynta lagu hayo ee Israa'iil ku hayso in macluumaad sax ah oo la xiriira goobaha ay Israa'iil duqeynayso in Israa'iil ay gacanteeda galeen waxay muujinaysaa in dhinacyo Suuriya kamid ah inay la shaqeynayaan Israa'iil dadka qaar ayaa waxay gaarsiinayaan ilaa madaxweynihii hore dadka qaarna waxay leeyihiin hore ayay basaasiin ugu dhaxlayd waddanka Suuriya inta marka la yiraahdo arrintan la xiriirta dagaalkan labada dhinaca wax la isu reebanay ma jiraan Xuutiyiinta hore ayay uga codsadeen wadamada Carabta inay jid siiyaan ee dagaalka uga qayb gasho jidkaas wax ilaa hadda bixiya lama arko Xuutiyiintana uma muuqato inay dagaalkan joojinayaan waa gartay waa hagaag dhanka qasa aynu eegno xogaga iska cabinta Falastiiniyiinta saacadihii la soo dhaafay dhowrkii maalmood la soo dhaafay waxay dardar geliyeen weerarada warkeenana maanta waxa ku jirta markii ugu horeysay dagaalkan inay xaqiijiyeen inay isticmaaleen qof isqarxiya arrintan ma la oran karaa dagaalka waji kale uu yeeshaba hadiiba toorey la sala tagay oo askartii la dilay kuwa kalena qof isku qarxiyay Israa'iil dagaalkan ay ka wada marinka Gaza sida ay generaaladooda xogogaalka u sheegeen dagaal magaalo Israa'iil waxba kama keenayso si kastay u deegaanada u burburiyeen guryaha u burburiyeen generaalada ayaa waxay qirteen in burburkii uu ku noqday mixnad god walba iyo daal walba burbura qori ayaa ka soo jeeda askari ayaa ka soo baxaya waxa inta dheer oo aanan afka lagu ballaarinayn oo idaacadaha dhan ay ka aamusan yihiin in ururada ka dagaalamaya marinka Gaza ay ciidamo hor leh cusubna qorteen saraakiil cusubna ay magacaabeen xirfadaha dagaalkoodana mar ka dambaysa in ay wax ka bedelayaan haddana ay aad uga gacan sareeyaan Israa'iil wargortanka wada hadaladana Israa'iil marka ay duqeynta shacabka ku badisaba miiska wada hadalada wax ayna laqi karin ayaa hor yaala Israa'iil waxay u badan tahay inay laqdo wax ayna laqi karin oo ah dagaalkan halka sano iyo labada bilood socday ee qasaaraha badan ay geysatay ayadoo Xamaasna aan burburin kana adkaan inuu dagaalku istaagi doono una badan tahay horena daawadayaasha HBN oo sheegnay in dagaalka uu istaago ayadoo wax hadaf aan gaarin Xamaasna ay deegaankaas maamulayso waxa ayadana soo tartay in la rabo in siyaasad ahaan loo maareeyo wixii ay Israa'iil dagaal ku weyday in siyaasad ahaan lagu siiyo sidii ka dhacday heshiiska waqooyiga iyo Xisbullah ay galeen oo Mareykanka hadda afku balaaranay 30 kilomitir waa inay durugtaa heshiiskan oo ahaa ku salaysan heshiiskii 2006 Naciim Qaasim af buuxa ku sheegay wax cusub heshiiskaas kuma jiraan heshiiskii hore ee 2006 weey laakiin Mareykanka wuxuu rabaa inuu af ku siiyo wixii ay xoog ku weyday wabiga laytaani meel ka fog waa inay Xamaas Xisbullah tagaan maanta waxaa shir ku lahaa xuduudka Mareykanka Faransiiska
ciidamada qaramada midoobe iyo ciidamada Lubnaan. shirkaasi wuxuu ku saabsanaa sidii loo kala qaadi lahaa dhinacyada dagaalamaya, laakiin xabad joojintii ayaa inay burburta qarka u saaran oo marka dambaysa khasaarada ayaa sii balaaranaysa. Israa'iil marka dhinac walba uma roona, haddana dagaal cusub ayay isku gashay, Suuriya isku gashay, haddana waa aragtaa ayada iyo Xuutiyiinta wax kala haysta. tan kale Israa'iil gudaheeda laftirkeeda caga culus kuma taagna, siyaasadda beenta ay madaxdooda sheegayaan ayaa maalinta ka dambaysa dadka soo kalaysa. waa gartay. waa yahay dhanka Suuriya aynu eegno inagoo barnaamijka gabagabadiisa ku jirna, ma la is oran karaa Maraykanku mowqifkiisa uu bedelay? kooxahan ujeedku waxay ahayd in la daayo Bashar al-Assad meesha ay ka saaraan, laakiin breega ama muraayadaha laga dalaacdo sida hadda muuqata markuu leeyahay aqoonsiga shuruud baan ku xiraynaa. maxaa lagu fasirayaa arrintan? khabiirada arrimahan la fagura Maraykanka dhaqankii uu Maraykanku lahaan jiray inuu waxyeeriyo weli waxaad moodaa inay howshiisa tahay. Blinken oo inta Tel Aviv istaagay Netanyahu marka la kulma lahaa, aniga halkan waxaan u joogaa nin Yahuudi anigoo ah, ayaa hadda wuxuu rabaa inuu wax u jeediyo niman culumo ah oo adduunka meel ay ka jiraan aan la arag. maalintii jimcihii la soo dhaafay masaajidka ugu weyn ee ugu qadiimsan, ra'iisul wasaaraha cusub ayaa salaada khudbada khadiibka ahaa oo khudbada jeedinayay. mowqifkii uu ka hadlay waa la ogyahay. Yahuudda iyo Maraykanka ma aaminayaan maamulkaana waad og tahay in uu qunyar socod yahay xaaladda uu ku jiro, waa xeelaysanaya, ayagana waxbaa meel u yaalla, way og yihiin. marka waxa ay rabaan in ay helaan waxa ay rabaan, laakiin qoladan sida khabiirada hadalku u dhigayaan qolo loo hanjabi karo ma. waxa weeye hanjabaad Talabaan ayaa wax looga waayey, Iiraan ayaa wax looga waayey. qoladan haddii loola tagana waxaa muuqanaysa sida axaadiista yawmal qiyaamaha ku xusan inay wax badan ka imaanayn. waxaana muuqata waddankan Suuriya dadka culummada waxay sheegaan oo baraha bulshada dhan buuxda inayna ahayn meel sahlan. waxa ayadana taariikhda soo noqnoqotay qoyskan Asad inay weligood xiriir la lahaayeen Yahuudda. waxaa la sheegaa in Xaafid al-Asad uu xiriir la lahaa Yahuudda, oo xataa inuu xukunka qabsado ay mas-uul ka ahaayeen dowladda Faransiiska ee waddanka xukumaysay si ay garab u siiso oo dadkan Sunniyiinta ah ayna madaxa kor u qaadin. laakiin hadda waxay tahaba Maraykanku mowqifkiisa waa cad yahay, Suuriyana mowqifkeeda waa la yaqaanaa, dadka aqoonta durugsan u leh labada dhinac waa la is ogsoon yahay. marka waan arkaynaa meesha ku biyo shabato, laakiin hadalla macmacaan oo dabacsan ayay jeedinayaan Suuriyiinta. laakiin dhinaca kale ayaa waxay rabaan inay wax roxroodaan oo wax daadsadaan, umana badna inay wax ka daadsan karaan sababtoo awoodooda ayaa sii daciifaysa. waa hagaag maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. intaa ayaa caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka. daawada si aad noola socoto una hesho wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu soo gudbinno, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inuu barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa. jimca mubaarak, nabaadiino. qorshaan kuu hayaaya haddaad qaaraddaas Yurub iyo Ameerika ku sugan tahay iyo meel kastoo dunida ka joogto, qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya lacagta ugu dir Ria Money Transfer oo kuu sahlaysa inaad banki akoonkooda IBS lacag ugu dirto ama ay ka qaadan karaan xarumaha IBS Bank. IBS Bank iyo xawaalada Ria Money Transfer ayaa kuu suurtageliyey inaad kaga baxdo baahida lacag dirista degdegga ah. ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka Soomaaliya hadda ugu dir Ria Money Transfer, hadda ka qaado IBS Bank. faahfaahin dheer iyo kala xiriir telefoonada shaashada ku qoran. waxaa dhammaan bulshada lala socodsiinayaa in shirkadda dhinaca duulimaadyada tigidhada xajka iyo cumrada ee Easy Go Travel ee fadhigeedu yahay UK iyo magaalooyin kaloo dunida ku yaala ay bulshada u soo bandhigayso barnaamij cusub oo horumar iyo wanaag uu ugu jiro adduun iyo aakhiraba. shirkadda Easy Go Travel waxa ay heshiis la gashay shirkadda Al Rajixi ee degan dalka Sacuudi Arabiya oo qaabilsan arrimaha xajka iyo maamulkiisa. heshiiskaasi waxa uu dhigayaa in shirkadda Easy Go Travel ay wakiil uga tahay UK iyo guud ahaan qaaradda Yurub. haddaba qof kasta oo ku haminaya inuu aado xajka
sannadkan ay taariikhda hijrigu tahay 1446 iyo kadibba ha ogaado in shirkadda Easygo Travel ay heshiiskaasi ballaaran la gashay shirkaddaas iyadoo qof kasta lacagta laga qaadayo ay tahay tan ugu qiimaha yar oo ah ilaa iyo 6,000 oo ganiga istarliinka. haddaba meel kastoo joogtaan yaan la muugaan inaad fursaddan ka faa'iidaysato iyadoo hawlihii kale ee Easygo Travelna ay sidoodii hore u socdaan. wixii faahfaahin la xiriir telefoonnada shaashadda kaaga muuqda.